السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhamaan asxaabta ku xiran channelkan. Maanta waxaan ka hadlaynaa muuqaal cusub oo ku saabsan sida loo qarsado Facebook reaction. Posti ama maxay ahayd sawir ama posti qoraal soo dhigtay reaction iska saartay asxaabta oo loo qariyo inuu ka yeeyo maanta muuqaalkeena. ugu horreyn waxaan soo furnaynaa application Facebook waliba ifta maxay ahayd buluuga ifta light-ka ma aha ifta buluuga waan soo furnaynaa soo furnaynaa ifta buluuga sida caadiga ahayd waxaan tegaynaa maxay saddexda dhibcood ku dhufaynaa markaan ku dhufano ayaa waxaan ku soo xiraynaa halkan setting and privacy waan ka baarnaa setting and privacy marka option ka baarno aynu helno ka bacdi baan waa kana ku dhufano ayaa waxaan ka sii dooranaa halkan baan ka sii baarnaa wax loo yaqaan maxay halkan ayaan wax ka xiraynaa wax loo yaqaan maxay setting and privacy saa markaan ku dhufano setting and privacy ayaa waxaan ku soo xiraynaa option loo yaqaan setting marka saa ku dhufano ayaa waxaan ka soo xiraynaa wax loo yaqaan maxay reaction privacy waa kan option kan u dan laynagu waa kan war reaction privacy ay ku xiran tahay marka setting ka soo doorano ayaan ku dhufaynaa marka ayaan ku dhufano halka kan waxay noo soo baxay laba option ka ku sare oo oranay positive from others oo ah kan u dan laynagu waa kaas tare halkaas baynu ku dhiganaa maxay halkaas ayaan baan active gareynaa markaan soo active gareynay asxaabteena ma ka maari karto sawirada soo dhignay inta qof la saartay hadaynu eegno you setting have been updated setting waa la update marka tan hoosan waxa weeye idina tan hoosan waxa sheegaysaa inaan postiyada tusaale ahaan soo share gareynay maxay ahayd tolema wariya ka soo dhigay tan soo share gareysatay muuqaaladaas oo kale sida diidana maxay ahayd tolay dad soo dhigto kale in doorso reaction ka arkin ayadana loo isticmaalaa laakiin tii maanta u dan lahayn wata sare saas ma u qarinaysaa hadii dib ugu noqono marka saas uu inoogu qarsan yahay asxaabtuna ay soo gasho sawiradeeni ma arki karaan inta qof ka saartay hay'ado reaction muuqaalkan maanta inta soo yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.